waxaan ku shaqeynaynaa rabitaanka shacabka shacabku iyo dawladdu waa isku hal markay kala tagaan waa marka ay shabaab xoogaysanayso waa marka ay leynayso xildhibaanada waa marka shacabkeena ay leynayso waa marka ay noo diidayso horumarka saas darteed shacabka iyo dawladda iswadata cid walba waa ka adagta shabaab baan imaan karin dawladda shisheeyaan imaan karin saas darteed waa inaan shacabku u dhawaano waxaan bedelaynaa oo kale haddii aad fursad siisaan oo aad ii doorataan xilka aan raadinayo hadduu ilaah yiraahdo in dawladdu awooddeedu ku cabiriso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtii waaweyneyd yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baawarta ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin dadkaad u baahnay arrinta ugu muhiimsan waxay tahay oo la rabaa in la fahmo siyaasaddu waa xal raadin siyaasaddu khayaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha meel ay adduunka ka jirtana ma laha adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weyn hooyad uurka leh boqolkiiba 6 ilaa 10 waxay halis u tahay inay dhimato ama ay umul raacdo boqolkiiba 10 ilmaha dhalanaya waxaa laga yaabaa inay dhintaan infant mortality inay u dhintaan hooyada Soomaaliyeed waa tan markii dib dhaco qaxda waa tan ooyeysa markii ilmihii ay ku babacaan badda waxaan ka codsanayaa codkiina si aan u badbaadino dhallaanka iyo haweenka Soomaaliyeed oo runtii dib ugu daran iyagu ku dhacayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saakaaba markaba ugu daran waayo wada aan soo maray hadda wallahi islaan oo ilmo ka soo jeedana xataa aan waday oo macnaha xaamile oo macnaha isbitaal u socotay waa ku rafaadnay si aan u moodnay asgari wuxuu ku leeyahay naqo meel loo naqdana ma leh caran caafimaad lama tii karo xarun waxbarasho lama tii karo xarun shaqo lama tii karo wallahi kulli dawladdu waxa u sheegana ma naqaano laakiin wadooyinku una naga qafiifiso amniga soo celiso laakiin san amni ku soo cesho maayo bal isdhaxgal bulshada sameeyso qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weyn